xilli magaalada Cabudwaaq ay noqotay magaalooyinka ugu amniga badan dalkan Soomaaliya ayaa waxa laga dareemayaa isu socodka gaadiidka dadka ee dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ayadoona ay noqotay magaaladu meel labada wadan ay wax ku kala bedeshaan magaalada Cabudwaaq ayaa maalin waliba waxa soo gasha 30 iyo dhowr baabuur oo nooca isjiidka ah ayadoona intoo kale ay koonfurta ka yimaadaan baabuurtan ayaa u kala qaada labada wadan halka sibirkana loo gudbiyo gudaha Soomaaliya cusbada iyo waxa kale ee laga keeno Soomaaliyana loo gudbiyo gudaha Itoobiya fursadaasi ka jira gudaha magaalada Cabudwaaq ayaa kumanaan dhalinyaro iyo waliba gaadiid kala duwan waxa ay ka heleen fursado shaqo ayadoona keentay in maalin waliba ay dhalinyaro badan u soo shaqo tagto rugida alaabaha kala duwan ee baabuurta ka kala imaanaysa Soomaaliya iyo waliba Itoobiya qaar kamid ah gaadiidleyda ka timaada gudaha Itoobiya iyo waliba Soomaaliya ee kala keena alaabaha kala duwan ee wata baabuurta waaweyn oo aan waraysi la yeelanay ayaa waxa ay nooga warbixiyeen xaaladaha kala duwan ay kala kulmaan ayagoona sheegay in Cabudwaaq ay tahay magaalo in badan ku habboon ganacsiga ayna labada wadan waxyaabaha u kala socda lagu kala wareejiyo horta aniga magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Maxamed Umar waxaana kaaga hadlayaa horta anaka waxaan ka shaqeynaa meesha la yiraahdo Xilibi ilaa Cabudwaaq magaalada asbaankeena halkaas cusbada ka soo qaadnaa Cabudwaaqna waa ka farab taagnaa Cabudwaaq waxna gato baabuurtan Itoobiya ka imaato niman Soomaaliya wato anaga iibsado marka magaalada Cabudwaaq maankeeda ka waran ما شاء الله وبقنا وانا هدي هذا قاريس دبيس فرنتها او رساريا موجوده هدي هذا كتغو العد ان تغو ان كسو نقدو ابا ان كسو dhaxata subax hado imad ayada sideedan oo imaanayaan wax tuya amba in wax daro oo dagaal ay gardaro sameeyay wax oo qof ku maqan iyo ma aan ka arkin hadda anta aan joogo Cabudwaaq bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mustafa Cabdi Salaan Axmed waxaan wadaa gaarigan sideed boolka waxaan hadda sidaa cusbo waxaana ka keenay Xilibi oo 180 kilomitir ka shaqeysa magaalada Cadaado meesha hadda joognaa waa Cabudwaaq halkan waa kastan kala wareeg ah baabuurkan waa Euro Truck wuxuu ka yimaadaa ilaa Addis Ababa ma sha Allah nabad iyo khayr iyo barwaaqa Ilaahayna siiyay halkan waxay noqotay kastan kala wareeg ah wuxuu ka keenaa Itoobiya gaarigani shamiito iyo alaabo kale oo loo baahan yahay oo Soomaaliya laga rabo annaguna wixii Soomaaliya laga raba ayaanu halkaan keenaa anigoo Cabdirasaaq Maxamed Caarad oo jooga magaalada Cabudwaaq halkaan waa si macna amniga iyo maamulka u dhashay xamaalinta waxa ku magac dheeray Xaji Lacag amniga soo dhashay waartayna ka bixilaanay shaqo Itoobiya iyo isku furmay Soomaaliya amniga waxa dhiilaayaa si shaqeeyay korowsiya la loo siyaadiyay agal Abdullaahi Abdi waxa baabuurta si kala wareegayso artay magaalada amnigeeda maantiidii anagu bil dhan ba iska fadhin jirnay marka boosay Cabudwaaq ka shaqeyn jiray hadeertaana marka lawrka booso ka keenno lawrka labaad waxaan ka soo qaadnaa Xilibi waa keenaa ilaa 3 lawr ba Xilibi ka soo qaadnaa Xilibi lawrka ka soo qaadno Krishmeynimo waxa noo siiya $40 kuanbaag Itoobiya baabuurta u sii baxaan oo sii qaadaan inta sii maqanay kuwa kala hadana ku rugnaa ku soo haynaa magaalada saasaan ma sha Allah ku soo dhaweynaa dhanka kale waxyaabaha xiisaha leh intaan warbixintaan ku guda jirnay aan la kulanay ayaa ahaa Axmed Yaasiin Cali oo kamid ah oo ah wiil dhalinyaro oo daadiisu ay aad u yar tahay oo markaad bidaantiisa aad aragtaa isdhaysid maqan gaarin oo gaari weyn oo Euro Truck ka asikin darawal ayaan la kulanay gaarigaas oo ka shaqeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayagoona Itoobiya inta badan ka keena sibirka Ali Yaasiin ayaa inooga warbixiyay tajar oo ay bishii tagaan gudaha Itoobiya iyo waliba waxyaabaha ay ka keenaan iyo waliba sida uu yahay amniga gudaha magaalada Cabudwaaq bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Cali Maxamed Barre waxaan wadaa gaariga waan sikin darawalka ahay bishiiba waxaan soo noqonaa 20 jeer waxaan keenaa sibirka xagga Cabudwaaq waan ku rognaa ilaa Cadaado ilaa Dhuusamareeb markaan ka soo noqono Cabudwaaq qimano waxaan ka qaadnaa Cabudwaaq milixda Itoobiya looga baahnaa Itoobiyana waxay Soomaaliya uga baahnayd baan u keenaa waana mahadsantii isku furankan gaadiidka iyo dadka ee labada dawladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku soo aadaya xilli uu isbedel weyn uu ka dhacay geeska Afrika ayadoona uu saameynteeda ku yeeshay deegaano badan oo xuduud leh dalalkaani iyo waliba gudaha Soomaaliya waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xif telefishinka caalamiga ah ee Somali News wararka waqooyi galgaduud Cabudwaaq